أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ugu horeyn aan aad iyo aad ka mahadnaqayaa magaaladiina Namataan sida quruxda badan aad noo soo dhaweyseen sida raggiiga horeeyay oo aqalkuba ay sheegeen waxaan u soconaa in aynu foodkeena insha Allah taala aynu guuleysano sida aynu guuleysan lahayn waxaan filayaa maanta waynu wadognahay insha Allah waynu guuleysan doonaa laakiin anagu tiimkayga shaqadaanu qabanayna wax weeye in aanu cod badan keeno aynu isku dhaafno cod far badan oo insha Allah waynu guuleysanaa laakiin waan 100 kun oo cod isku dhaafno taasa tiimkani imika halkan aan ku joognaa ka shaqeynayno bariga galbeed bay u marayaan waan reer Mataan idinka codsanayna idinka doonayna musharaxiini wax weeye waa Musabix Cabdi waa mujaahidkii baan dooranayna waxaynu doonaynaa hadduu subhanahu wa ta'ala ka dhigo inaad codkiina mideysaan inaad is ururisaan inaad bisha 13keeda aydan goor hore u kala hadaan oo ku gashaan oo midaad garanaysaan midaad garanayn baad guriyaha garaacdaan oo cod fara badan aynu kan wax lagu murmo doorimeyno wax la isugu soo dhawaado doorimeyno waxaanu doonaynaa cududeena weyn haddaynu reer Soomaaliland nahay in aynu sidii Siilaayo daahiriyada aynu kala saarnay ay musharaxiintana aynu kala saaro 100 kun oo cod aynu dhaxayaan subhanahu wa ta'ala idinkii taas baan idin kula dardaaray imika waqti xun baa taagantii qurax baa taagantiin aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa sida sharafta badan aad noo soo dhaweyseen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما مدحدا gobolka degmada iyo wasiirada iyo qurbajoogta halka joogtaba iyo shacabkan quruxda badanba mar labaad waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar saddexaad waxaan idinka mahadnaqayaa haddaad tii shacabka inta badan aad noo sugayseen aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa waxaan jecelahay in aan anigu wax in yar oo kooban aan idinoo soo koobo maadaama in badan aad joogteen bisha 13keeda hadduu Eebbe subxaanahu wa ta'ala ka dhigo waxa aynu gelaynaa food baa dalka oo dhan looga diyaar yahay foodkaas baynu wada soconaa aynu doonaynaa in aynu wax ka sheegno bisha 13keeda waxaynu foodaynaa Eebbe subxaanahu wa ta'ala idinkii waxaynu foodi doonaa in aynu nabadgelyo helno waxaynu foodi doonaa in aynu ciidankeena adkaysano waxaynu foodi doonaa hadduu Eebbe subxaanahu wa ta'ala ka dhigo in aynu xuduudaheena sugno waxaynu Eebbe subxaanahu wa ta'ala idinkii u foodi doonaa
inuu dalkeenu dal noqdo jira oo jooga waxaynu foodi doonaa in caruurtiinu ay iskuule helaan waxaynu foodi doonaa in aad caafimaad heshaan waxaynu foodi doonaa in aad shaqo heshaan waxaynu foodi doonaa eebbe subxaana wa tacaala idinkii inaad nolol ka qurux badan aad ku noolaataan baynu wada foodaynaa foodka aynu doonaynaa waad foodka in aynu u foodno dalkeennu inuu noqdo dal xor ah inuu noqdo dalkeennu dal ixtiraaf hela inuu noqdo dalkeennu dal ka fogaada Soomaaliya oo aynu noqono Somaliland xor ah oo xalaal ah oo adduunyada calankeedu ka babdayno wada foodina foodka aynu doonaynaa waa foodkaas ma aha hebel iyo hebel baynu foodinaa oo kaliya walaakiin foodka waxa ku xidhan mustaqbalkaaga foodka waxa ku xidhan caruurtaada mustaqbalkooda foodkaaga waxa ku xidhan magaalada allay badayaad ku nooshahay in lagaaga furo dugsi sare in lagaaga furo caafimaad in lagaaga furo biyo inaad cusbitaal hesho in ardaydaadu ay sida Hargeysa oo kale aan Hargeysa loo toogno iskuul loo doonan oo Hargeysa aanad u doonan caafimaad oo Hargeysa aanad u doonan dhakhtar oo Hargeysa aanad u doonan halkan wax walba aad ka hesho baynu maanta u foodaynaa waxaynu foodaynaa oo foodka siinaynaa musharaxiinteenu dabadad kala dooranayna markaynu isla fahanno in foodkeenu noocaas yahayba waxaynu kala dooranaynaa yaynu dooranaynaa idiin sheegi maayo oo allay baday anigu umaan iman in aan halkan idiin sheego ciddaad u foodaysaan walaakiinse waxaan u nimay inaan idiin sheegno cidda aynu foodaynaa inay tahay cidda suurto gelinaysa inaad nolol fiican ku noolaato cidda suurto gelinaysa in ciidan fiican aynu dhisanno cidda suurto gelinaysa inuu dal xor ah oo ictiraaf lehna ku helo qofkaas aan anagu arkaynaa waxa weeye maanta saaxadda saarani waa mujaahidka dalkan u soo dhintay waa mujaahidka dalkan u soo dagaalamay waa mujaahidka dalkan xoreeyay waa mujaahidka aad wada garaysaan ee Muuse Biixi Cabdi haddii Eebbe subxaana wa tacaala ka dhigo waxa uu mujaahidku heli doonaa cod waxa uu mujaahidku heli doonaa cod uu ku guulaysto walaakiinse codka aynu doonaynaa wuxuu doonaynaa inuu noqdo cod 100,000 oo ka badan cod 200,000 cod ka badan ma doonayno inaynu helo 20,000 isdheeraano ama 30,000 isdheer laakiin waxaan u soconnaa oo waftigan anigu aan ku jiro aan u socono bariga galbeed baan u mari doonaa Eebbe subxaana wa tacaala idinkii inaanu suurtagal ka dhigno in codku noqdo cod 100,000 ka badan taas miyaanay suurtagal xaggiina ka ahayn allay baday imika waan yar shakiyay oo istifaac baan ku jirteen qof kastoo halkan ka hadlaayay waxaan u arkay istifaac laakiin haddana waxay isu ka qaban way qof kaliya naga beeray iyo sidaad isu difaacaysaan waxaan leeyahay allay baday waxaanu ka doonaynaa codka ugu badan allay baday waxaanu ka doonaynaa cod qofkaasina uu ku jiro aad idinku garanaysaan annagu garan maynee qofkaana soo kaxeeya oo ku hubiya foodka inuu ku dhaco la'aana qof baa lagu dhici karaa kama doonayno allay baday wasiirkeedu halkan yahay allay baday oo odayga halkan joogo allay baday oo Soomaaliya ka dhashay in la yiraahdo qof baa ka leexay qof baa ka leexday ma doonayno waxaan bas ku soo gabagabeynayaa waxaanu dhisanaynaa dal baynu wada dhisanaynaa qofka aynu dooranayno waxaanu ka doonaynaa inuu dal dhiso dalkaas baynu wada dhisnaa adaa dhisaya hooyaa dhisaysa habaryartaa dhisaysa eeddaa dhisaysa adeeraa dhisaya dalkaasaynu wada dhisanaynaa ninkan waa liider oo madaxweyne noqonaya walaakiin aynu diyaar u wada noqonayno dalka wada dhisano diyaar u wada noqonay inaynu Soomaaliya ka fogaano diyaar u wada ahaano inuu dalkeenu ahaado Somaliland dhab ah oo keena qurba jooga iyo keena gudaha jooga iyo keena ciidanka ah iyo keena askariga ah iyo keena macallinkii ay isku si ugu wada raaxaystaan Eebbe subxaana wa tacaala idinkii taasna suurtagal waxa ka dhigaya insha Allah tacaala 10 sano soo socda oo aan qabo 25 sanadood ee Somaliland ay jirtay waxaanu qabsanay inuu Muuse 5 sano ku qabanayaan aaminsanahay Eebbe subxaana wa tacaala idinkii marka waxaanu jecelahay oo aanu martidii ka nahay oo bari aanu idinka nimi in aad Muuse intiina halkan joogtay inta allay baday ka dareertaan sidaan anaguba allay baday u maraynaa tuulooyinka dhan martaan oo aynu suurto galnay bisha 13keeda cod aan lagu murmin cod aan laga shakiin cod aan idinka hadal in aynu Muuse soo saaro Muuse bisha 14keeda ee subxaanahu wa ta'ala idinkii uu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ee dalkan ka talan doona. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.